marka looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya oo ay ilaa haatan furmin iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo diidan ka qaybgalka shirkaasi ayaa warar dheeraad ah waxay ka soo baxayaan iyadoo dawladda Mareykanka la filayo in ay shir gaar ah u qabato madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaana arrimahaasi isha ku hayay oo ka wareysanayna wariyahayga Xuseen Cabdulle Maxamed Xuseen maxaa ka cusub hoolka shirka iyo waxyaabihii ugu dambeeyay Cabdicasiis waa mahadsantahay waxaa socda dadaalo xoog leh oo ay xubnaha beesha caalamka xal ugu raadinayaan ismarwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya hoggaanka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulada Puntland iyo Jubbaland iyo caqabado xoog leh oo ay beesha caalamku ka wajahayso shirkan oo ay diidan tahay inuu fashilmo oo ay maanta qorsho inuu furmo xeerada ciidamada cirka ee Afisyooni waxaa ku wada sugan hadda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha maamulada Galmudug Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir xeeradaas waxaa sidoo kale amniga sugaya ciidamo isugu jira Soomaali iyo sidoo kale ciidamada Midowga Afrika AMISOM waxaa la sheegayaa in ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada Soomaaliya ay koofiya casta loo yaqaano iyo ciidanka AMISOM inay ku wada sugan yihiin inkastoo dadka goobta ku sugan ay xaqiijinayaan in ciidanka ilaalada madaxtooyada ee halkaas ku sugan aysan hub wadan ama ay hubaysnayn laakiin lagu arkayo gudaha hoolka iyo sidoo kale meelaha ka agdhow hoolka eeridiisa waxaa shirkan ka maqan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaana xusid mudan in ciidanka madaxweynayaasha kale ee dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir looga reebay meel u dhow teendhada shirka oo ay kaliya loo ogolaaday ciidamada ilaalada madaxweynaha Soomaaliya madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Deni iyo sidoo kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe shirkan waa ka maqan yihiin waxaana la sheegayaa ilaa hadda shirku inuu san furmin sababta u furmin la ayahana waa maqnaashooda dhowr sabab ayaa lagu sheegay sababta shirkan ugu soo qaybgali waayeen oo ay noo xaqiijiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xubno kamid ah guddiga la socda Axmed Madoobe iyo Deni iyo sidoo kale xubno kamid ah shaqaalaha Soomaalida ee u shaqeeya UN-ka iyo Midowga Yurub afar sabab ayaa ugu waaweyn sababta ay shirkan uga qaybgali waayeen oo ilaa hadda la xaqiijiyay waa maray waxay dalbadeen marka ugu horeysa in ciidanka la socda madaxweyne Farmaajo goobta laga saaro oo lagu wareejiyo ciidamada AMISOM si kalsooni amni loo helo Deni Axmed Madoobe ayaa dalbaday mar labaad waxay dalbadeen inaysan ka qaybgali karin shirkan oo aan laga talagelinin ajandihiisa oo ay xalifila Soomaaliya soo saartay sidaas darteed Axmed Madoobe iyo Deni waxay ku doodayaan in marka hore ajandaha shirka laga talageliyo oo lala fariisto haddii aysan dhicin oo sida xalay oo kale ahna jadwalka ay villa Soomaaliya soo saartay lagu shaqeynay inaysan ka qaybgali karin shirkaas qodobka saddexaad oo ilaa hadda la xaqiijiyay inay diidan yihiin waxaa ka mid ah in aysan suurtagal u arkin ama aysan ku qanacsaneen in shirkaasi ay goobjoog noqdaan khudbadana ka jeediyaan guddiga farsamada ee heer wasiir ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka socda ee Baydhabo ku shiray guddigaas oo jadwalkii villa Soomaaliya xala soo saartay lagu sheegay inay qayb ka ahaan doonaan shirkan oo ay daqiiqado ama saacado kooban joogi doonaan isla markaana ay ka warbixin doonaan wixii lagu heshiiyay waad ogeeday Puntland iyo Jubbaland waxay diidanayeen guddigan oo heer wasiir ah ee farsamada ee shirkii ugu dambeeyay dikaal ku yeesho way ka maqnaayeen marka in qayb ay guddigaas ka noqdaan shirka ayay diidan yihiin mar afraad ama qodobka afraad waxaa lagu sheegay in hoggaanka shirka ay dalbanayaan in loo dhiibo cid ka madax bannaan madaxweyne Farmaajo oo wakiilada caalamka ah si loo dhaqan geliyo wixii lagu ballamay waxay kaloo dood ka qabaan in aysan ka qaybgali karin shirkaasi maadaama madaxweyne Farmaajo uu gudoominayo doodoodu waxay ku saleysan tahay in marka hore aanay suurtagal ahayn iyaga iyo madaxweyne Farmaajo oo dagaalsan ama aan heshiis ahayn oo wada shaqeyn ka dhaxayn shir uu isaga gudoomiye u yahay ama uu madax ka yahay inay ka qayb galaan caqabadaas ayaa ugu waaweyn waxa ay Puntland iyo Jubbaland dalbanayaan oo aysan shirka uga qaybgalin arrinta ciidamada ayaana ugu weyn wararkii ugu dambeeyay ee aan hadda helnay waxay tilmaamayaan in la filayo in goordhow oo shir u furmo ayba dhici kartaba inay warbaahinta la hadlaan madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya intaas hadii si kale loo dhahan waxa la isku yiraahdaa madasha badbaado qaran oo dhawaan magaalada Muqdisho looga dhawaaqay waxa kale soo baxaya warar sheegaya in wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay iyo sidoo kale ambassador Donald Yamamoto oo safiirka Mareykanka ay hadda wadaan dadaal xoog leh oo ay ku diidan yihiin in shirkaas oo fashilmo waxa la qorsheynayaa in la isu keeno madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland si gaar ah loo kulansiiyo arintooda iyo xal loogu raadiyo markaas kadibna ay dhici karto in shirka galabta ilaa caawa uu furmo
wararkii ugu dambeeyey xubno ka mid a baarlamaanka oo ku sugan halka ay joogaan Dan iyo Axmed Madoobe waxay noo sheegeen in la sugayo Donald Yamamoto iyo sidoo kale ergey gaarka ee qaramada midoobay James Wan oo shirkan abaabulaya lana filayo in saacadaha soo socda ama daqiiqadaha soo socdo oo dhaco shir gaar oo saddexda madaxweyne u dhaxeeya oo looga hadli doono sidii shirkan u furmi lahaa xalna loogu heli lahaa caqabadaha taagan markii dhinac kale loo fiiriyo waxaa jirta dood ee Villa Soomaaliya qabto oo ah inaysan ka qayb gali karin madaxweyne Farmaajo shir aysan dowladdiisu hogaamineen asigana uusan shir guddoon ka ahayn ciidanka ilaalada madaxweyne Farmaajo aysan amnigu sugan marka taag iyo xujo iyo waxaa jira ismarwaa xoog leh oo u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ilaa hadda wax war ah oo diidma ah ama ogolaasho laga soo sheegay ma jirto madaxweynaha kale ee maamul goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaa sacad inay goobta shirka joogaan waxaa socda sheeko ama shir gaar oo madaxweyne Farmaajo uu la leeyahay madaxweynaha maamulkiisa taabacsan ee Puntland galmudug ayaan kala jeedaa iyo Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay warar ku soo kordhaan waan la wadaagi doonaa dhageystayaasheena